labada beelood meesha isku maatay beesha aqanqaar iyo beesha waafate culumadeeda iyo aqaarteeda iyo sagaalooyinkooda iyo mas-uuliyiinta iyo xushmaha xuseen duqeyda guddi mar labaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa mahadsantihiin sidaan waqtiga gaaban noogu soo bixiseen imanka habeennimada saacadihii dukaamada la furan lahaa dugsiyaha la aadi lahaa iyo ninkii uun jiif ku noqon lahaa oo aan noo soo ajiibteen aad iyo aad baa u mahadsantihiin. waqti aan noo soo bixiseen aad baa u mahadsantihiin. waa arrin aynaga filaynay aan isku lahayn waayey maanta gobasha waxaa iskale beesha aqanqeer aad iyo aad baan inagu mahad celinaynaa saa noo soo ajiibteen. soo dhawaada soo dhawaada. soomaalida waxay tidhaahdaa dantaada way ku wadaa werisna way kaa rabtaa. waxaan rabaa inaan guda galo sababta beesha aqanqeer ay ugu yeeratay walaalaha reer waafate ay ugu yeeratay. sagaaro mircawd isuma moogaa la yidhi. waxaad ka warrayseen aqanqeer meesha la yidhaahda dhaab inuu fadhiistay oo arrin siyaasadda ku saabsan uu fadhiistay asaga uu dhaqeexayo gambarkii Dadaab constituency. waxaa si midnimo wada jir ah ay isku soo raaceen ama ay ku soo qaadeen maxamed cali sheekh oo u taqaanaa loo yaqaano amin computer. codsiga ugu horreeyey aqanqeer markii laga soo tago ku soo xigay waa beesha walaalahee maanta aan la fadhinay reer waafate. codsiga aan wadanaa wuxuu yahay annaga haddaan nahay beesha aqanqeer ninkaas ayaan wadanaa waana isku soo raacnay waana soo qaadnay inaad nala qaadaan yaan codsanaynaa. waxaan u hawoonay gambarka weynaa ee Dadaab constituency. waxaan jeclaysanay hor inaan u soconno. sidaas daraaddeed codsiga annaga wuxuu ku kooban yahay beesha reer waafate kuwa kalena waan usii gudbi doonaaye cawliyahan haddii ilaahay ka raali noqdo. saad maqlayseen ama aad og tihiin aqanqeer boha iyo boqorba uu soo tushaday. aamiin baa lagu soo tushaday in la qaado. dhammaanna way ka midaysan yihiin aqanqeer. wax kaadhan kaandha ah oo kala dambeeya ama gooni gooni u socdo ma jiraan. arrintaa waan ka midaysannahay maadaama aan soo tashanay. codsigii koowaad waxaan muxuu ahaye u dhiganay gobasha walaalahan reer waafate. allaha barakeeyo. waxaan rabnaa codsiga inay nala qaadaan nagu soo dhoweeyaan gacmo furan nagu soo dhoweeyaan annagana insha allah kalgaceylka wanaagsan iyo qalbadaan u qabno aan ku sii ta'kiidino. cawlahan wuu badan yahay waa 9 dabood. sidaa ay tahay muumin xasan waa 3 waad ogtihiin. dad waxaa noogu xiga raafka baa labadeenna na weheliya. marka ilmaadeeryaalo inaan tashanno oon isqabsanno oo maalinta maanta meel aan ka soo wada jeysano ayaan rabnaa insha allahu tacaala. salaan ka bacdi arrinta duqeyd baa idin sheegay dhameeyeyna waxaan ku darahayaa dadkan waa dad ehelo walaal ah. waxa maaragtay ladinku yeedhay lamarwanna ladinka dhigay waa dhalasho jirta awgeed. meesha qoys waafataa uu degan yahay qoys aqanqeyrana wuu degan yahay. meesha qoys waafataa uu degan yahay qoys aqanqeyrana wuu degan yahay. ceelku waafata ka cabbi aqanqeyrna uu ka cabbahayaan. marka waxaan rabnaa reer waafatow maanta isku dan baan nahay isku deegaan baan nahay xigtaan isku nahay. arrintaa codsiga ladiin soo dhiibay ee ladiin sheegay ee wiilkaa maanta soo hawooday inta hawoorisay buu ka mid yahay. hadda kuwaa ku jira ku kaluu ka qaaday kuwaa ku kala ka sii qaaday ku kaluu ka sii qaaday intuba cawliyaha bay ahayd. annaga kumaana jirin oo aqanqeyr kuma jirin idinkana kumiina jirin. marka maanta waxaan rabnaa
inaan garab isku noqono wiilka aan wada garab istaagno aad baan idiin salaami barakaatu aniga magacayga Idris Ibrahim Saciid baa lahaa waxaan u malaynay duqeyda hadleen wax ka dheer oo aan sii sheegi mana codsigayna mid ka buu ahaa inaan taagannahay inaan reer waafato u sheegno baan saakid ugu yeernay waadna ku mahadsantihiin waqtiga aad kii hurdo ku noqon lahaana uu ku noqon lahaa kii madanaysan lahaa dukaankiis furan lahaa yani soo wacnay oo noo imaateen waad ku mahadsantihiin saa noo ajiibteen annaga codsigeenna waa un halkaa hadal badanna haama buuxshaa la yiri intaasaan ani hadalka kaga bixi wax kansala ka weyn oo weligaan cawlihan aan weydiisana ma jirin maamulka ilaahay baa iskale calafkana ilaahay baa bixiya waxaan maanta aan soo gudbinay wiilkaas application baan wadanaa walaalayahan reer waafato meeshan hadda kuma idle waxaan rabnaa applicationka inaad naga qaadaan waafato muumin uu noo tashado uuna soo qaado cawliyahan iyo inta hadda dadna wixii dhan uu noo geeyey maxaa ila kursiga cawliyahan buu ka dhexeeya sagaalka daba cawliyahanna wuu ismuday nin keligii iskeeni karana ma lehe waxa lagu qooqi waa cawliyahan iyo soomaalida iyo ogaadeenka nala degan dhaadhaab intaa baa lagu qooqi annagoo calafka annaga ku kalsoon annagoona xiiqdii qabin annagoo aad iyo aad kalsooni u qabno khaasatan weliba hadda beeshan reer waafato ee walaalahan dadka cawliyahan deegaan buu kula leeyahy isku dheri baan annaga idinka marka sidaa aawadeed waxaan idinkugu soo horumarin ayadoo waqtigii uu dhiman yahay oo ognahay oo waqti badan uu dhiman yahay waxaan usoo degdegsanay haddee waxaa la yidhi geel hadduu lugaha hore habeed ku yeesho maxaa la yidhi waa lala yaabay laga yaabo inaan ilaahay kuna soo degdegnay marka degdega asaga waxaan rabnaa inaad nagu soo dhaweysaan applicationka aad naga qaadaan abshirta allahna waafajiye kulankeenana abshir allah ka dhigo intaa ka bacdi arrintaa aada noogu yeerteen aad baad ugu mahadsantihiin kolleyba hadday dan iska kengelin noomayna yeerteen inaana kala maarmin oo dhaliyo aan nahay baad noogu yeerteen annagana taa waa niiga mahad celinaynaa nin walba maalin unbaa loo yeelan doonaa waxaan u malayn annaga laftiga annaga oo naga warqabtaan ila ugu soo socdo waa iska tuhmaysaan marka arrinta aada noo sheegateen waa arrin walaalnimo waa arrin aan isku leenahay waa arrin maaragtay annagana aan sugaynay inaad noogu imaan doontaan waxaan u malayn muumin xasan wax aan meeshaa tegin waxaa jiro aada khayr iyo waafate cawliyahan kale way jiraan laakiin hadda muumin xasan baan ka hadlaynaa labadaa qoys baa jiro applicationka aada noo keensateenna applicationkii waa idinka qaadnay malaynay taladan waa tu aan sugaynay waa tu aan sugaynay warkiinana aad baan u maqalnay tollimaan u maqalnay walaalimaan ehlimaan u maqalnay kolleyba waafatana jawaab waad ka heli doontiin waxaan u malaynaya arrintaata ku saabsan application hana laga qaado applicationka waan qaadnay tollimaan ku qaadnay ilmaadeernimaan ku qaadnay walaalimaan ku qaadnay jawaabtana waafatay la jirtaa insha allah waan fara badannahay meelo badan baa la kala degan yahay khabarka waa la isgaarsiin rabaa ayadoo isaa jirta haddana waafate in badan oo kamid ah inagu soo socotaa iniga xaggiina weliba marka walaalayaalow saasaad ogaanaysiin waad mahadsantihiin xildhibaankana aad iyo aad buu mahadsan yahay waxaa kaloo mahad u jeedinaya tolka guud sababtay tahay dad u horreeyey maanta qabiil u horreeyey annaga naga horreeyay reer waafati inuusan jirin maad inoo sheegteen hadalka waa hadal qaaya leh aadna iyo aad waad mahadsantihiin ani hadalkayga intaasaan kaga muhiimaddu annaguna waan garanayna waan la soconay waa wiilka aad wadaane amiina inaan idinla qaadno ama applicationka inaga qaadno muhiimadda shirka sidaa uu ahaa waxna kama bedelayno wiilka amiina ee aada wadaan applicationkiisii hadalka muhiimaddiisa waa sidaa un weeye waa idinka qaadnay halna ogaada waxaa la yidhi budo iyo biyo maxay jireen way isu baahan yihiin labada beelood way isku baahan yihiin waa ood wadaag wax badan baa ka dhexeeya keetiga hoose MCA baa ka dhexeeya kii kor iska badaa marka tol la'aan ama gacan la'aan ma noqonaysaan laakiin hadda way kala horeeyaan applicationkii aad keenteen waa inaga qaadnay السلام عليكم والحمد لله والثناء لله الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
saad u dhantihiinba waan idin salaamayaa mid yar iyo mid weyn sheekh iyo macallin culimo iyo caamo rijaal iyo khiyaar yoota waa idin salaamay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigu waxaan ku hadlayaa waxaa waaye ilaahay ninkuu siiyo baa horta shaqadan heli aadan khayr iyo waafatiyo kuma xirna ilaahay bay ku xiran tahay anigana ad arkaysa anoo reer waafatee baan gaaris ka dhex istaagay 4 goor baa afgaad kasta ila istaagay 4 goor isku xitaan soo galay reer waafate miyaa meesha waa ku badnaan karaa ilaahay baa isiiyo obama baa maraykanka bartinkiisa soo ugu ceyla kasoo dhex galay oo madaxweyne iska noqday reer qaasin baa gabana iska noqday gaaris dhexdeed waxaan waa ninkuu ilaahay siiyo midda kale aamin waa nin libaaxe waa nin codkiisa goosan karo muxuu yidhi maxamed mursi libaxyadiina haddaad cuntaan libax dadka leeyahay la cuni doono waqti gaaban baa lagu jiraa waa nin adan qeyr xumale hadalkii loo baahnaa way maqleen ayagana hadalkooda waa maqalna meeshan waxaa la rabaa mugta inay rules ku sheego waxaa le ninkaan ruu sheegina been baa u qarsoon waa nin adan qeyr inay been la isku sheego ma fiicna inay wixii jiri la isku sheegaa wanaagsan duqeyda xumale wixii wanaagsanaa way ku hadleen wixii aad maanta dhihi leedeen ba ayakan dheheen saan filaya because ninka mas-uulka ah waxyaala ka daba imaan hadduu ku hadlo aad iyo aad baa looga wanaagsan yahay hadda intaad sheegaysin reer waafate intaad maanta joogta ma matasho dadkii maaragtay cid kasta matalaya joogaa laakiin waxaa fiican in la tashado wixii ayadoo tafaxtiran lii keeno reer waafate xumalina waxay degan yihiin dhadhaab bay degan yihiin dheertu bay degan yihiin meelaha aad kuraha ka rabtaan badi bay degan yihin alikunay degan yihin soo ka warhaysaan markaa tolkii waa inay hadalka la gaarsiiyo maanta waa la maqli inaa gool noo dhigateen warkii way maqlayaan fariintii way maqlayaan ninkan waxyaala badan baa laga yaaba in laygu imaado mid kale reer waafate ninkan waxaan naga codsanaya inkastoo waalidood aad tihiin warar baa ka dhex jiraya wararka inuu ilahay ka saaro linkan usoo duciya aan si fiican si wanaagsan oo waddo fiican aan idinku imaano dhammaan waan islaamayaa labada beel ee walaalaha ee meesha maanta ku kulmayaan khaasatan waxaan u mahad celinayaa walaaladan beesha reer waafate ee maanta soo ajiibeen waan ii mahad celinaynaa waxaan maleyna hadal iyo codsiga uu dhammaaday annaga waxaan u istaagayaa oon mahad celino maxaa yeelay wixii codsiga waa la dhiibay aada xagga aadan qeyr bay kasoo gudurtay walaalada reer waafatena waxaan maleynayaa wixii codsiga way naga qaadeen annaga waxaan leenahay waa mahadsantiin saada soo ajiibteen kheyr allah la siiyo waxaa yeelay laba qoys walaale oona kala maarin baan nahay marka saasaad ogaanaysiin dad badan baa iga dambeeya waqtigana wuu yaryahay mar koowaad iyo mar labaad waxaan leenahay walaalayaalow aad baa umahadsantihiin awalan ilaahay baa mahad iskale midda xigta waxaan rabaa inaan u mahad celiyo beesha reer waafate oo iyagana meeshan ku idil waxaan u maleynay labadan cid waa laba cid oo dhalyo ah haddana waa laba cid oo deegaan iyo daaq iyo wax badan uu ka dhexeey waana laba cid oo muddo aada soo tartamaysay kursiga aba qaylo hadduu rabo ha noqdo aba dhinaca iyo soomaaliya iyo etoobiya iyo kan gaarisba ha noqdo marka hadda aadan qeyr iyo waafate wax weyn uu ku kala tago meeshan ma yaallo guusha waafate waa guusha aadan qeyr guusha beesha aadan qeyrna waa guusha waafate sidaa garab inoo siisaan baa annagana garab idiin siinaynaa sidaa annaga garab aan idiin siinaa inigana inoo siinaysaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ummadda meesha iskugu timaaday ee muslimiinta ah aniga dad badan baa laga yaabaa muxuu haajir meeshan kasoo doonay in la isleeyahay laakiin maanta waxaa maaragtay dhacahayaa tashi aada iyo aada u weyn oo siyaasadeed oo aada iyo aada u saameyn doono woodhka aan xilka ka hayo arrintaa iyada ee sinaba ogama maqnaadeen maxaa yeele waa arrin taariikhi ah laba qoys oo 60kii sane ee Kenya ay qaadatay xorriyada kuraas kala duwan ku tartami jirtay ayaa maanta isku dayayaan inay gawaarida kala wareejiyaan oo midna la yiraahdo niyow dhinaca left mar kan kalena la yiraahdo dhinaca right ka mar marka arrintaa waa arrin taariikhi ah
nin walba oo ciddan siyaasadeeda labada cidood ka warhayana aad iyo aad buu u daneynayaa. marka aniga hajir ahaan sinaba ogama maqnaadeen meesha maanta aan mas-uulka ka ahay. mas-uulka ugu sarreeya ilaahay baa maaragtay sarreeyaaye. tala labada qoys ee meesha ayada ee ku tilmaaman ay ku tashan hayaan sinaba ogama maqnaadeen. السلام عليكم. رأي ذلك رأي بتسيتي ما في عندي. إلهي وما تسكله إلى ما تمشي سوقي معنا. ما هذا خاص وحنو علينا يا رأي ذلك تركي رأي وفتى. ولو هذا قلنا أنك بحناية. إن أنصحك بكسوك الله. تاس الأردن بانك بحناية نقرأ النقطة. shirka oo dhadhaab liga sugayaan yaan rabaa inaan ka qayb qaato. saasaan nagu keentay inaan soo qalino idinkana sida ehelnimada maaragtay aad waqti fiican nagu imaateen oo shirkeena waqtigan ku maasan waad ku maasantiin dad walaalnimo laga helaa. midda xigto mawduuca meesha iskugu imaanay tolkii baa isweydiista labada tol si wanaagsan oo ehelnimo leh waad nagu qaabisheen. wixii aan ka filaynana waad noo sheegteen wanaagna waadna tusteen waadna ku mahadsantiin. ani laba qodob baa inaan ka hadlo. qodobka koowaad waa midnimada labadan reer. waxaa laga yaabaa dadka inay isweydiinayaan aadan kheer wuu soo tashtay baha iyo boqor asagoo ka maqnina dhaab ku tashtay safarkan wuxuu dhahay farcideeda inaga soo jeedeen kursiga dhadhaab meeshu nala galow aan doonano ilaahayna aan tala saarano dadkaan ku soo hawanana number 1 baad ka tihiin. haddana ilaahay wuxuu xukmay maanta cidda koowaad aan u yeeranay inaa adinka tihiin. dadka inuu isweydiinaa laga yaabaa inta fadhida meesha iyo inta bannaanka jirta. waxaa la dhaheen labada indhood way isku hurdaan sooma. xaquuqul jiiraan waxaa la dhahaa jira inaan wada dhalano mashaki baa ku jira. mashaki baa ku jira inaan darisna mashaki baa ku jira. waxaa la dhahay fartan waa fartan wuxuu samaho cusub ka bayin samaha. annaga kow ehel iyo walaal baan uga dhalanay. laba daris baan nahay. haddaan adiga wax ku weydiisan waaya kaa bilaawi waay daris shisha kama bilaawaay. hortaas ogaada nin walbana yaqiinta ha gashto. midnimada reerkana labadan reer insha allah anigoo ilaahay igu ogyahay oo qalbiyan ay tahay inaan ka shaqeeyo. waxaan go-aansaday maalinta ugu dambeysay oo kursigaas maaragtay aan ku tartannay oo walaalkii haajirna uu ku guuleystay yaan go-aan 3 habeen aan bariyaan. habeenkaas doorashada markii kursigu haajir ku guuleystay saan u seexdana weliga ma seexan. hal yar oo xumaan intaa dhanna weligay ima gelin. sababtoo dad iskamaana lahaynin waxba iskumaan samaynin. wixii aan doonaynin unbaa doonayseen. wax xumaan aad samayseen ma jirin. kursina hal qof baa ku fadhiistaa. ilaahay baa idin qore. annagana 24 sana ku jira saas maaha. waxaa nasiib darray inaan anaga aan ka xumaano rag walaalkeen oo maaragtay kursi ku guuleysta waa khalad. tolkaygana waan tashanay. waxaan dhahnay walaalayahan soomee qaadanin garab waana ugu noqono inaan istusno. sababtoo hadday xaaji cabdullaahi moogtahay wuu tuuraa bahashma mar. haajir waan kabsamee mar waxaan ku dhahaa war haajir dahabkii aadan kheer meesha uu ku qarin jiray horta ma soo aragtaan ku dheh horta weli waa qubadaa oo weli waan raadinaya. horte inaan noqono dadkii isku keeni lahaa tolka walaalka maaragtay xumaan ee kor maqnay inaan noqono inaan nabuwan ka noqdo ilaahayna aan la kaashanayo yaan horta rabaa bilaahi insha allah. inaan wax wada qabsan karnane aan istusno. kalsooni inaan idin tusnaa walaalaheen baa tihiine inaan annaga maanta xidid weydiisan karno aan garab ii noqon karno waxaad noogu imaatiin annagana ha noqoto inaan istusno. ha noqoto inta dalalkaas ha noqoto inuu xukun waa istusno. waxaa la dhahay walaala hadday wasiirkaa sheegeen maaragtay xintame way xoola yarayaan. waa run waa dhab xaqiiq waa. waxaan aaminsana haddaan iskaashano midnimada horta ceeb ma aho. sababtee qofku walaalka kugu dhow haddii mid ahayn isku raayiin ahayn walaalka lama wadooni kartid. because ninka kale ayadoo la wada dhashay
asagana meel uu ku tirsay laakiin intii isku dhow markay iskaashato tii kaloo guudna maxaa la dhahaa way midoobi marka aniga waxaan ka codsanayaa insha Allah saan u bilownay noqoni reerkan si loo mideen lahaa aan wax u doonan lahayn aan wax u qabsan lahayn